بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدب go'aankii xadgudubka ahaa ee ka dhanka ahaa Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee Israel ay ku aqoonsatay qayb ka mid ah gobollada waqooyi ee Soomaaliya waxa kulan caadi ahayn isugu yimid golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana kulankaas shir gudoominayay Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre kadibna waxa ka soo baxay qaraarkan. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay markale adkeynaysaa mowqifkeeda lama taabtaanka ah ee ku aadan ilaalinta madaxbannaanideeda midnimadeeda dhuleed taasoo ay damaanad qaadeen dastuurka ku-meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, axdiga qaramada midoobay iyo axdiga aasaaska midowga Afrika. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay si buuxda u diidan tahay sharci darrana u aragtaa go'aanka gardarrada ah ee Israel ay ku aqoonsatay qayb ka mid ah gobollada waqooyi ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan dagaal qaawan oo lagu soo qaaday midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Soomaaliya waxay mar kale caddeynaysaa in dalkeeda aan sinaba loo kala qaybin karin. Tallaabada Israel ay qaadayna ay khatar ku tahay nabadgelyada gobolka, badda cas, bariga dhexe, gacanka cadmeed, isla markaana ay dhiirigelinayso kooxaha argagixisada ah. Tallaabadan sharci darrada ah ee lagu dhaqaaqay ma ahan mid dan u ah gobolka, waxayna Soomaaliya ka digaysaa cawaaqibka xun ee ka dhalan kara, iyadoo dalbanaysa in si degdeg ah looga laabto go'aankan sharci darrada ah si loo dhooro xasiloonida gobolka iyo tan caalamka intaba. Soomaaliya waxay ku celinaysaa taageerada mabda'a ku dhisan ee soo jireenka ah ee ay u hayso xuquuqda shacabka reer Falastiin, gaar ahaan xaqooda ay ka talinta, waxayna si adag u diidaysaa gumaysiga, barakicinta qasabka ah iyo isbeddel kasta oo sharci darro ah oo lagu sameeyo qaab deegaaneedka dadka. Dowladda Soomaaliya waxay si adag u diidaysaa in dhulkeeda laga samaysto saldhigyo ciidan, soo rarid iyo dejin qasab ah. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa ka go'an wada shaqayn wax ku ool ah oo ay la yeelato beesha caalamka, kuna salaysan is-ixtiraam iyo iskaashi goboleed. Isla markaasna dowladda Soomaaliya waxay qaadi doontaa dhammaan tallaabooyinka diblomaasiyadeed iyo kuwa sharci ee laga maarmaanka ah si waafaqsan axdiga qaramada midoobay si ay u difaacdo madaxbannaanideeda iyo xuduudaheeda caalamiga ah ee la aqoonsan yahay. Duulaankan qaawan wuxuu si gaar ah khatar ugu yahay shacabka ku nool gobollada waqooyi ee dalka, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda, maadaama qorshaha loo socda uu yahay in halkaas laga samaysto saldhigyo military oo la doonayo in lagu weeraro waddamo kale. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa shacabkeeda inay muujiyaan midnimo buuxda, isla markaana ay si wada jir ah u difaacaan madaxbannaanida iyo midnimada qaran ee dalkooda. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dalalka iyo saaxiibada caalamiga inay ixtiraamaan shuruucda caalamiga ah, gaar ahaan waajibaadka la xiriira faragelin la'aanta iyo dhowrista midnimada dhuleed, isla markaana ay u dhaqmaan si mas'uuliyad leh iyagoo ilaalinaya nabadda iyo xasiloonida Geeska Afrika. Ugu dambeyn, dowladda Soomaaliya waxay sidoo kale ugu baaqaysaa ururada caalamiga ah sida qaramada midoobay, midowga Afrika, ururka Islaamka, jaamacadda Carabta iyo urur goboleedyada IGAD iyo urur goboleedka Bariga Afrika inay iyaguna qayb ka qaataan arrintan oo ay Soomaaliya ku taageeraan qadiyadeeda saxda ah. Mahadsanidin.